cashirkeena galabta insha allah cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa sida caada ahayd English new words translated to Somali ereyo Ingiliisha ereyo cusuba lagu turjumi doono af Soomaali marka dhageysa habboon English new words waa English new words ereyo cusub af Soomaali ereyo cusub ereygaas ayaa ugu dhow suspect waa tuhmane waa qof dembi lagu tuhmay aansan lagu cadaynin weli waa qof laga shakiyay ama dembi lagu tuhmay laakiin weli aan wax cadayna loo hayn aggression gardarrada waa qof si khalada lagu maagay ama si khalada wax loogu eedeeyo lagu dhibaateynaya gardarro af Soomaali waa asaasaan malayn regression dib u gurasho inta badan waxaa isticmaala askarta iyo ciidamada isticmaala ereygan dagaal kolku ku adkaado kale waxaad maqlaysaa dib u gurasho ama qof inuu sameeyo damay ka cabsaday ama ku awoodi waayay kadibna dib u gurasho sameeyay attack waa iska caadi waa weerar waxaa isaguna la mid ah assault waa la mid ah oo iyadana weerar defeat waxa weeye guul darro laba ciidan ay soo jeeyeen mid ayaa la jabiyay ama laba qof aad tartan gashay mid ayaa guuleystay mid waa guuleystay midna waa laga guuleystay maxay noqon defeated waa guul darro qofkii laga guuleystay intelligence waa garaadka intelligence waxaa loo isticmaalaa marka qaarka sirdoonadii laakiin kan waxaan uga jeednaa heerka ay garaadka qofku gaadhsiisan yahay ama way maskaxdiisa cabirkeeda IQ-ga qofkaas intuu gaadhsiisan yahay ama aragga maskaxeeda qofkaas intuu gaadhsiisan yahay criticism waxaan dhahnay waa dhaleecayn qof baa waxun sameeyey cambaarayn iyo dhaleecayn labada ereyba waa loo isticmaalaa tribalism waxa weeye qabyaalad aad bay Soomaaliya ugu badan tahay tribalism waa qabyaalad nepotism waxa weeye qaraabo kiil tusaale laba qof aa tartamay shaqo u wada tartamay mid ayaa soo baxay laakiin qofka shaqada gacanta ku haya waxay isku qabiil yihiin ama isku family yihiin midkan kale kadib kii ayuu qaraabo kiil waa naqana waxay tahay inta badan nepotism afka qaraad lagu dhahaa nepotism corrupt waa musuq waxaa la mid ah bribe waa wixii ficilkii lacagtii tusaalaan dhahno ama shaqo ha noqoto ama noocay doonaa ha noqotay waa samaynta ama dhiibitaanka waxa isaga aad samaynayso magaciisuna muxuu noqonayaa musuq maasuq lacagan qof siiyey shaqaan ka rabay inuu wax ii fudaydiyo lacagtiyan siiyey lacagtu waa maxay laaluush ficilkan sameeyey muxuu yahay musuq maasuq corruption laaluush corruption waxa weeye musuq maasuq bribe-na waxa weeye laaluush waa iska dhow yihiin laakiin saan anigu aaminsanahay corruption waa ficilkii kanna waa wixii isaga ahaa aad ku samaysay transition waxaan dhahaynaa waa transition waxa weeye waa transition kala guur ama kumeel gaarra way noqotaa kala guurra way noqotaa tusaalahan Soomaali transition government waa xilli aynu dowladdii sidii laga rabay ayna shuruudihii buuxinin laakiin ay xilli kumeel gaara ku jirto waa ereyo kooban laakiin adeegsigooda aad inoogu badan yahay suspect waxaan dhahnay tuhmane ama eedaysane aggression waxaan dhahnay gardarrada ama gardarro regression waxaan dhahnay dib u gurasho attack waxaan dhahnay weerar assault waxaan dhahnay isagana waa weerar laakiin erey ahaan ay ku kala duwan defeat waxaan dhahnay guul darro ama qof laga guuleystay intelligence garaad ama garasho intellectual waxaan dhahaynaa waxgarad intelligence iyo intellectual ay kala yihiin kan waa maxay garaadka qofku intuu gaarsiisan yahay intellectual waxa weeye waxgarad way iska agdhow yihiin laakiin Soomaaliga waxoogaabaa u dhexeeya criticism waxaan dhahnay waa dhaleecayn ama cambaarayn tribalism waxaan dhahnay qabyaalad nepotism qaraabo kiil ama corrupt waa musuq maasuq ama waxaad musuqdo wax booskii meeshii saxda ahayd aadan marinin bribe waxa weeye laaluush tusaalahan waan sheegnay waxaan dhahnay ereygan musuq maasuq waxay noqonaa tusaale qof aad wax ka rabtay waxbaad kaga bedelatay waxaad ka rabtay
wadadii saxdaydna ma tusaale lacag baad siisay shaqaad ka rabtay inuu kuu fudaydiyo marka maxay noqonaysaa laaluushkaad bixisay wuxuu noqday musuq maasuq transition waxaan dhahaynaa waa kala guur ama ku meel gaar intaas ayaan ku daynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.